Komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa waxa ay soo dajiyeen maanta qalab ay ugu tala galeen howlaha doorashooyinka qaranka Somaliland ee la filayo inay qabsoomaan 2017 qalabkaasi ayaa waxa iyagu madaarka caasimadda Hargeysa ku soo dhaweeyay faahinna kaga bixiyay komishanka doorashooyinka oo uu hormood u yahay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Somaliland Cabdilqaadir Iimaan sidoo kale madaxa hay'adda qalabkan soo gaarsiisay komishanka doorashooyinka iyo waliba Dr. Maxamed Cismaan Fadal oo isagu ka wakiilaha xisbiyada qaranka Somaliland waxaanay mas'uuliyiintanu gabi ahaanba sheegeen faa'iidada uu qalabkan u leeyahay sidoo kalena waxay sheegeen in la filayo inuu wax ballaaran ka qabto gabi ahaanba doorashada la filayo inay ka dhacdo 2017 Somaliland madaxa hay'adda iyo waliba gudoomiyaha komishanka doorashooyinka iyo sidoo kale xubin ku hadlaysay afka asxaabta ayaa dhamaantood sheegay qalabkani iyo waliba waxyaabihii loogu tala galay iyagoo ka hadlaya ayaa waxa ay yiraahdeen komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu xil saaran yahay diiwaangelin codbixiyaasha Somaliland tiiba maanta bilow inoo ah si aynu u gaadhno doorasho xor iyo xalaal ah oo aynu ugu gaadhno diiwaangelintan aynu gelayno waxa maanta aad arkaysaan indhihiina ku arkaysaan qalabkii ugu dambeeyay oo ah qalabkii ka howlgelayay goobaha diiwaangelinada ee gobolada iyo degmooyinka oo dhan oo intiisii ugu dambeysay maanta ina soo gaadhay inagoo taagan airportka Hargeysa kula wareegnay diyaaradii siday oo ka keentay dalka Denmark Copenhagen 42 pallets packed with excellent equipment with eye scanning software ensuring that a safe election can take place where no duplication is possible. So thank you very much for your help. oo bilaabantay 2 sanadood iyo dheeraad ka hor oo ilaa intaas soo socotay inay maanta iyadoo isu dhan ay komishankii qaranku inoo hirgeliyeen inay halkaa soo tubto oo dayuurad khaas ah ku keenaan waxay taasu ina tusaysaa inaynu dariiqii doorashada hayno annaga xisbiyadana iimaanka ay noo dejinaysaa waxaannu ka filaynaa inay mar walba sidaa noola socodsiiyaan noogu yeedhaan oo aanu markhaati uga noqonno hawsha wanaagsan ay hayaan wassalaamu calaykum isku soo wada duubo qalabkani ayaa la filayaa inuu faa'iido ballaaran u noqdo u diyaar garowga howlaha doorashooyinka Somaliland waa Maxamed Cali Xaashi telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Hargeysa.